hawlo badan baa inoo yaala waynu saararki doonaa waxaan saanagu idinka baahnaa idiin sheegay kow in laga hayo fayl urur walba halkaa uu registerka aado xarunta gobolka lafteeda sharcigiisa iyo xubnihiisaba in la helo waxaa soo dhan waxa ka muhiim ah dhalinyaradina waa ogtay Itoobiya waxaynu ku soo fasaday khamri iyo xashiishad dhalinyarteena waa la fasahaadinaya cid ururinaysa oo qacmo dhuudhuubanayga xaafadii la joogtaan waa idinka inaad dhiib u gashaan oo ruuxan halkuu inaga soo galay muxuu ina yeeli karayaa sidee nagu hortaginaa inaad taladeeda keentaan oo waxa aad waxba ka qaban karo weydo dawladda wax ku qabanaysa jira mushkiladaas halka jirta xarun khamri halka laga sameeyay xashiishada baabuurka iyo waxa soo raacdaa inaynu war kale helno saynu fasahaadka laftiisa wax uga qabanno waxa muhiim ah rasuulkeena alayhi salaatu wa salaam markuu ducaysanayay ilaahay wuxuu weydiistay amni iyo iimaan haddaynu maanta isku yaacyaacno masaajidka meenu ku tukanaynaa cibaado iyo caawimo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan oo dhan waxa ay salo ah waa nabadgelyadeen warmana waxa kaliya ku faantaa waa magaalo multi population dad badan oo kala jaajad isugu yimi jaamacadda Ershan kuna qof baa dhigta Soomaali meel ay joogto waa la isaga yimaadaa dadana banku qarxin cid baa noo imanaysa ilaa macaqoonteeduna sheeganayna in inaga la inaga arko gobol lagu daydaynayno noqono laakiin gobol wax ku daydaynayna noqon baan rajeynaya waxa weeye ururadiina haddii dhalinyaradiina xaafadda inta ugu noqotaan oo intiina aydan isku soo koobin wax badan baa qaban kartaan siyaabo badan oo isu kaashan kartaan ka waxa idin leeyahay warbal magaalada nabadgelyadiina san noo ilaashan lahayna ka hawlgala saynu isu sharciyeelno dad isku duubano iswadoogo isxaalugna aynu u noqon lahayna aan isku dayno imsanay maanta aynu halkan isugu nimi waxa weey saddexda arrimood in la ogaado institutionku waxa uu taagan yahay oo aynu ka shaqeeyeen la ogaado fiilka ku wajahan yahay in lagu ogaanayo oo bulshada aynu turjumay iyo wada shaqeynta inaga naga dhaxayso oo ay tahay xaqii amniga haddaanu amni jirin waxba shaqeyn ma dhulka ay wax ka dhacayaan intiina ku baahsan oo joogto haddaynan ka xun iska qaban barasabkuna kali waxba qaban maayo meeyarkuna kali waxba qaban maayo wad garsooma waa magaalo nabadeed dad yow kala duwan oo kala dhalasho duwan oo waxbarasho soo doontay oo ajaanib ayaa ku nool waxa la doonay magaalo inay noqoto magaalo nabadeed inay noqoto